waxaad ku soo dhawaataan casharkan aan ku qaadan doonno spanning tree protocol iyo rapid spanning tree protocol. labadaba waxa weyn waa CCNA level. Marka let's get started. Sida idinka muuqata topology-gan yar wuxuu ka kooban yahay laba switch iyo server iyo computer. Marka bal spanning tree wuxuu yahay siduu u shaqeeyo aan isla eegno. Labada switch waxaan isticmaalnay laba cable oo cross cable ah. Sida ka muuqata midkood waa orange, kan kala sarana waxa weeyaan waa green. Haddaba problemka jira spanning tree u solve gareynaya muxuu yahay? Waxa weeyaan one of the problems u solve gareynaya waxa loo yaqaan waa layer 2 loops ama broadcast storm oo ah farin dhex wareegaysa switchka. Ka soo qaad xarigan inuu noo daaran yahay. Farintani waxay soo gashay switchka dabeetana laba interface buu leeyahay. Labada interface ba farintu way ka baxaysaa. Switch kan labaad labadiisa interface bay ka soo galaysaa dabeetana uu isweydaarinaya. Tii tusaale ahaan farintii ka soo gashay layerka ama xariga hoose halka sare ka baxaysaa. Tii xagga sare ka soo gashay cable-ka sarana cable-kan hoose ka baxaysaa. Dabeetana broadcast-ku intan buu dhex wareegaya. Inta markuu dhex wareego wuxuu abuurayaa inuu network-kaasi uu down noqdo. Waayo wuxuu isticmaalayaa resource ku lahaa switch-ku. Resource-ku leeyahay maxaa ka mid ah? RAM buu leeyahay iyo CPU buu leeyahay. Marka process-kii oo dhan waxa qaadanaya loop-ka sidii looga shaqeyn lahaa. Labadan computer halkan joogana farinta isku diraana waxay ku dhex lumi doontaa in this broadcast storm. Halku waa maxay? Waa spanning tree. Spanning tree wuxuu sameynayaa marka labadan cable mid ahaan buu temporary u daminayaa. Sababtu u daminaya wax kala maaha inuu ka hortago loop-kaas. Marka spanning tree waa protocol 802.1d IEEE standard weeye. One a very old protocol. Switch-ka intaanu soo bixin horteed baa la soo saaray. Marka by default uu enable gareysan yahay, waa daaran yahay. Xoogaa wuxuu qaadanayaa 30 seconds convergency. Imka haddaan is idhaahdo xadhigan ka jar sare. Kani wuxuu qaadanayaa waqti siduu u noqdo green. Waqtiga uu qaadanayo waqti xaadirkan network-kan la joogo lama doonayo time-ka faraha badan in la siiyo. 30 second waa fara badan tahay. That's why ba loo soo saaray advanced-kan loo yaqaano rapid spanning tree protocol. Isagu halka kan uu isticmaalayo wax loo yaqaan listening iyo learning oo min 15 second isu geyn waa 30 second. Kani wuxuu qaadanayaa less than seconds oo markiiba convergence buu sameynaya oo wuxuu ka bilaabaya from blocking to forwarding. Wuxuu ka saaray meesha listening-kii iyo learning-kii. Haddii imka cable-ka also aan ku celino cross-ka aan doorto xarigan isticmaalayo ama interface-kan isticmaalayo gigabit waxay qaadanaysaa 30 seconds inuu noqdo green. Marka configuration-kiisu spanning tree protocol normal spanning tree waa enable gareysan yahay. Waxaanu dooranayaa wax loo yaqaano root bridge. Inta labadan switch keeba hogaamiye noqonaya. Root bridge-kaas wuxuu eegaa bridge ID wax loo yaqaano oo ah priority system ID loo geeyay iyo MAC address-ka. Marka priority-goodu hadduu isku mid noqdo waana marka hore waa isku mid waxa la eegayaa MAC address-ka. Ka MAC address-kiisu yar yahay baa noqonaya hogaamiye. Imka labadan switch-kana MAC address-kiisu yar yahay waxaan ka eegi karnaa by clicking here. Switch-kan ku dhufano bal halka aan geysano bal aan eegno. Command-kan ku check garan karna waxa loo yaqaanaa show version. wax kale man qaban magacuun baan ka bedelay enable show version marka la yiraahdo MAC address-kiisu waa ka 001 kan kalena isna aan eegno 0030 iyo 1 kana wuxuu soo baxay doona show version hada ka muuqda 006 marka 6 iyo 1 ka baayar definitely 1 baayar kana noqday hogaamiyaha markuu noqdo muxuu faa'iido leeyahay interface-diisa oo dhan waa daarnaanayaan kan kalena wuxuu noqonayaa interface-kiisa la daminaya. So that's basically waxa meesha ka dhacaya. Okay, hadda waxaan doonaynaa marka configuration-ka bal inaan sameeyno spanning tree waliba aan isticmaalno kan rapid spanning tree-ga xarigan ka jarana isbedelka siduu u dhacayo isbedelkaasna waxa loo yaqaan convergence bal aan isla aragno. Configuration-kiis waa quite simple. Waxaad tegaysaa global configuration command way configure terminal waxa leenahay spanning tree question mark saar. Halka waxaad ka dooranaysaa waa maxay mode-kiisa bedelaysa.
spanning tree mode waxaan leenahay option kiisa maxaa inoo yaala rapid per VLAN spanning tree click baad siinaysaa then enter marka ku dhufatid and baan leenahay show spanning tree ay dhahdo halkan interface-yadiisa waa kuwa show spanning tree baan idhi spanning tree-ga la isticmaalayo waa RSTP priority-giisa waa ka MAC address-kiisana waa ka this bridge is the root isaga hogaamiyey bal halkan interface-kiisa isu bedelay aan eegno listening wuu ka maraya then waxaa ku xigta laning labada gigabit baa u dhaxeeya labada switch laning baa ku xigta then wuxuu isku bedeli doonaa forwarding FWD waa marka ugu horeysa ayuu waqtiga qaadanaya halkan aad arkaysaan inuu orange yahay it will turn to green akaas forwarding mu noqday halkan maxaa ka mid ah hello time waxa loo yaqaan waxa weeye labadan switch kolba waxa isku wareysanaya inuu linkigan live yahay inuu nool yahay in kale labadii second buffering baa la isku diraya xilli ma laga soo qaadayo switchkan inaanu soo jawaabin marka loo diro 10 farriimood oo hello ah oo dhigmata 20 second markuu soo jawaab waayo switchkan waxa laga soo qaadaya meel linkigan inuu yahay down switchka kale aan u tago isna same protocol isticmaalaan oo ah rapid spanning tree intaana rapidka ku dhufan ka default-ka ah aan eegno show spanning tree command baan ugu filan kor u soo kac halkan information kan oo ku soo dhigaya waa hogaamiyahan waa switchkan oo root bridge-ka loo yaqaano xogtiisii oo root bridge-ka wuxuu ku gaarayaa and waa cost of 4 since gigabit uu yahay MAC address-ku leeyahay switchkan priority-gu leeyahay switchkan ayuu halkan usoo dhigaya xogta switchkan waxaa laga helayaa bridge ID oo intan weeye isaga xogtan iskale MAC address-kiisa waa 006 interface-yadan labadan interface ee gigabit-ka ah mid waa ka root-ka tagaya root port baa loo yaqaana waana forwarding waa kan hoose shaqeynaya kan kalena waxa weeyaan waa alternative blocking waa dansan yahay kaas markuu damo ayuu kan shaqada la wareegaya kaas waxaa soo hadhay interface-kan waa designated root bridge-kana interface-yadiisa oo dhan waxaa loo yaqaanaa designated ports laakiin protocolku isticmaalaya kan waa maxay waa IEEE waa 1D 802.1D waa spanning tree markaan u bedelna maxay rapid spanning tree configure terminal spanning tree mode waxaan leenahay rapid per VLAN spanning tree intaas ku filan interface-iisa waa la daminaya dib baa loo daaraya show spanning tree ay dhahdo halkaas wali wuxuu marayaa waa is that wali alright inuu dib isku daara suuragala wuxuu ka dhigay kan waa ka server-ka tagay oo forwarding kan waa kii root-ka tagayay waa root port baa loo yaqaanaa kan alternative block fine waxaan hadaba sameynaa labada computer IP address soo kala siiyay kan waxaan soo siiyay 192.168.1.1 kan waxaan soo siiyay 192.168.1.2 waxaan sameynaa continuous ping and istaagan dabeetana xarigan hoosan ka jarana aan eegno bal siduu degdega isku bedelo one more IP address-kiisa salo checkra ipconfig baa leenahay 192.168.1.1 okay nice waxaa leenahay marka ping dash t 192.168.1.2 continuous ping weeye okay way socotaa xarigan hoose ayaan ka jaray markiiba wuxuu isku bedelay green no packet is lost wax lumay ilaa hadda ma arkayo sidaas uu yahay very fast degdeg buu isku bedelay xariga haddii aan ku soo celino aan eegno waxa dhaca gigabit markiiba isku bedelay maybe one packet baa lumaysa alright hal packet baa lumay intii kale saasay ku shaqeynaysaa alright spanning tree iyo rapid spanning tree waxay qabanayaan loobiska waxaan samayn karnaa in labadaba aan disable gareyno which is not recommended dabeetana waxaad arkaysaa waxa dhacaya no spanning tree
rabbit aan ka joojinaynaa spanning tree configure no spanning tree mode rabbit no spanning tree VLAN 1 kebiga spanning tree baan ka joojiyo same like this one no spanning tree VLAN 1 show spanning tree no spanning tree ma aragtaan labadu waa green haddaba haddii aan farin aan dirno what will happen loopkan ka sheekeynayo haddaad arki doontaan halkan ma arkaysaan in isbedeshay green racine ayuu noqday that means even I can show you here the physical kan ku dhufto aragtaan ma aragtaan ma garanayso waxaan ku muuqatay in kale right labadaas waa labada switch xadhkaha kala xidhaynayna waa gigabitkii aad buu loop u sameynaya farinta saas oo dhex wareegaysa so spanning tree la'aantii halka broadcast farinta kaliya taan dirnay even I can stop here waxa weeyaan waqtigaas qaadanaysa so halkiisu waa maxay spanning tree na dabil galaysa spanning tree mode rabbit per VLAN kan kalana saas oo kala sameyno spanning tree mode rabbit per VLAN interface idan dabino interface range gigabit 0/1-2 shutdown no shutdown okay still spanning tree VLAN 1 right can spanning tree VLAN 1 interface range gigabit 0/1-2 shutdown there no shutdown show spanning tree marka xaaladiisii saxdaheed ku soo noqday